وزير الدولة وزارة waxbarashada Hirshabelle gudoomiyaha degmada Balcad iyo xildhibaan Xasan Maxamed Xaaji oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle ayaa kormeeray dugsiyada waxbarashada ee degmada Balcad oo ay maamusho dawladda federaalka Soomaaliya kormeerkooda ayaa ku saabsanaa sidii ay ugu kuurgali lahaayeen xaaladda waxbarasho iskuulada ay booqdeen waxaana ka faahfaahiyay ujeedkaasi booqashada ah Ustaad Cismaan Maxamed Muqtaar Julius oo kamid ah maamulayaasha iskuulada ay booqdeen mas'uuliyiinta مدن قدومي مدن وزير waxaa joogtiin iskuulka joogtiin eebigreen ahaayo maxay dhahaan waqtigaas la aasay intaas oo arday ka soo baxday intaas oo macallin ay ka soo baxday iskuulka wuxuu diyaar u yahay inuu kaalintiisii firfircooneed oo guto waxaan rabaa inaan xasuusiyo macallimiinta iyo ardada iyo marti sharafta maamulka nala joogo iskuulkan wuxuu ahaa iskuulkii kaalinta koowaad ka gali jiray waxbarashada degmada gobolka iyo Soomaaliya oo dhan dhinaca kalena gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur Furdug ayaa ku dhiirigeliyay ardayda in ay ku dadaalaan waxbarashada isagoona sheegay inay muhiim u tahay mustaqbalkooda maanta waxa idin la baraayo ay waalidkiin kugu dadaalayaan iyo macallimiinta maxay tahay in biritaadi lagu nasto familka meel fiican uga soo baxday waxaan rabaa marka ardayda in hal baaq u diro ka faa'iideysta fursad wanaagsan ay haysatiin hadayicina waalidka hooyo iyo aabo iyo familka waxyaabaha ay ka rabaan waxa la rabaa inaa sida ay ayaga niyadooda ay tahay adina u qaadatid maxay waxay aaminsan yihiin ay niyadooda ku jirto ardaygooda ay soo direen aba wiilkooda iskuulka u direen inuu kaalin wanaagsan galaayo waxbarashadiisa wanaagsan tahay ay ka fikirayaan haddii uu guriga yimaado uusan ka fikirin wuxuu cuni lahaa iyo wuxuu cabi lahaa iyo wuxuu hugsa lahaa waxaan rabaa inaa hal baaq u diro bulshada reer Balcad guud ahaan isgoolkan waa isgool lacag la'aan ah ay maamusho dawlad goboleedka Hirshabelle waa isgool loogu bagac daray dugsiga hoose dhexe sare ee Balcad waa in ay ka faa'iideystaan ardayda iyo dhalinyaradana ay keenaan si ay wax ugu faa'iideystaan wax u bartaan maxay annaga maalinka wax baranayna ma helin fursad saan camal in fursad lacag la'aan ah ay dawladda bixiso nama soo marin qaarkeen laakiin maanta dadkii ka faa'iideysay waxa isleeyahay waa dad ay taariikhda qori doonto waqtigan uu ka gudbay waxaan rabaa bulshada reer Balcad inaa ugu baaqa hal arin isgoolkan waxa qarash ku baxaayo oo inta saan loogu dhisay oo saan loogu qalabeeyay oo arday lacag la'aan looga dhigay oo macallimiintu wax meel loogu saaro waxay ahayd in dhalinyarada da'da yarta ay wax bartaan ugu dambeyntiina wasiiru dawlaha wasaaradda waxbarashada maamulka Hirshabelle Ustaad Abuukar Xasan Abuukar ayaa ka hadlay booqashada uu maanta ku tagay goobaha waxbarashada degmada Balcad horti waa in soo ziyaaranay annaga waxaan ahay baax waxbarasho runtii anigu waxaan jeclahay in arday isaga dhex jiro macallinimada waa moogtahay cajiib waa moogtahay maanta waa faraxsanahay in arday dhex taagnaado waxa waaye waa aad u jeclahay runtii مسؤولية عن دقمة بلعد أو دقمة هنا وحكوا أمانة قدوميها يتيم كيسة أو سوري قليي أمني وحلو برتو إنسى دقنانا لو وصو كحافظي قريه سكولة دي المادان وحاما هذا كانوا علنا معلمين دي مامولك وأيقنا تابق قليي إن أقوانت أسعته سيد الله طلقل أدي أنك الله waxbarashada iyo qiimaheeda waxaad ogtihiin mustaqbalka berito ama ubaxii maanta inaa idinku tihiin ubaxa waxa waaye markii la arko fiyoora ama ubaxa dadku waa farxaan qofka markuu arko ubax runtii waxaad tihiin ubaxii dalka qofkii idin arkan ugu farxa beritan waxaa noqon doontaan mustaqbalka ama madaxda berito fursadda aad haysataan oo qaali ah oo ay sheegeen madaxda iga horeysay gudoomiyaha degmada iyo maamulaha dugsiga waa fursad qaali ah aqla min adahab fursadda waa ka qaalaysan tahay dahabka alwaqtu aqla min adahab saas ma ogsotiin waqtiga waa ka qaalaysan yahay dahabka qaali loo yaqaan sama booqashadan ayaa ku soo aadaysa xilli dhawaan la dhagax dhigay iskuul dugsi sare ah si loo kordhiyo heerka waxbarashada degmada Balcad
أحمد محمد شكر أحمد سعدال راضيها iyo telefishinka dalsan degmada balcad gobolka shabeellaha dhexe